gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda inaanay dafirin waxyaabihii ay soo qabteen mas'uuliyiintii kala duwan ee xilalka kaga horeeyay. Axmed Cabdi Cali ayaa warbixintan inooga diyaariyay. Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inaysan habooneen in la xaqiro waxqabadkii ay sameeyeen xukuumadihii kala duwan ee dalka soo maray oo sida uu sheegay ku soo shaqeeyay marxalado adag. gudoomiye Muude oo fariin u diray ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo golihiisa wasiirada ayaa waxa uu sheegay inay dalka yimaadeen iyadoo wax kasta ay nidaamsan yihiin oo marxalado adag laga soo shaqeeyay kadibna talada dalka ay qabteen balse ay muhiim tahay inay aqoonsadaan waxqabadka xukuumadihii ka horeeyay ee marxaladaha adag ku soo shaqeeyay. Muude ayaa waxa uu xusay in qof kasta oo Soomaali ah oo wax u qabta dalkan inuu mudan yahay ku amaanida shaqada qaran ee uu qabtay laakiin aysan raali ka noqon doonin in la xaqiro muwaadin walba wixii uu dalkan u soo qabtay. dad badan ayaa waxay yiraahdaan waxaan horta gadaalka gaar goobdum Ismaaciil waxaan rabaa saaxiibkay Kheyre xukuumaddiisa dad ka mid ah waxaan ka dhageysanahay oo dhahayo inay ayagu wax qabteen saaxiibkay Yariisow xukuumaddu ka tirsanaa waxaan rabaa in la sheego wixii ka horeeyay la soo qabtay taas abaal darayna qaraysaa waxaad timaadeen meel dhisanaad timaadeen lagu soo dhintay lagu soo rafaaday lagu soo qarxay lagu soo baahday ayaa timaadeen oo dhisan ma sheegtaan dadkii hore wixii ay soo qabteen abaal daridaas ma fiican waxaan rabaa aniga in la sheego qof kasta oo Soomaali ah shaqada uu qabtay in la sheego taas ay cadaalad ku jirtaa Soomaalinimadan ay ku jirtaa 28 sano wadankan uu burbursana ani sidana u dhax taagnaa waliga meel kama aad saaxiibka Yariisow Ingiriisku ka yimid badde oo aad amaanaysaan waa maasii aniga cid amaanays ma arkin yaa amaanoy baani 28 sano intaan dhax taagnaa qabi qashta war dadka aniga iga daranaa jooga wadanka oo wadanka wax ka qabtay oo dhintay oo rafaaday oo gabdha iyo wiilal leh. xukuumadda uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa muddooyinkii dambe waxay astaan ka dhigatay hal ku dhig ah waa markii ugu horeysay oo ka turjumaysa shaqada la qabtay inay tahay tii ugu horeysay ee nooceeda dalka laga sameeyo waxaana arintaasi hore ugu xumaaday xildhibaano iyo siyaasiyiin kuna baaqay in la bogaadiyo lana aqoonsado hawshii ay soo qabteen xukuumadihii iyo siyaasiyiintii dalka xilalka kala duwan ka soo qabtay. Axmed Cabdi Cali, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.